ciidamada damdamiska ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada Hargeysa waxa ay saaka aroortii hore ay howlgal ballaaran isla markaana adag ay ku soo badbaadiyeen haweeney da'deedu tahay 35 jir isla markaana uu la dumay kuna dhacday suuli amaba musqul ciidanka damdamiska ayaa soo badbaadiyay gabadhaasi isla markaana ka soo saaray hoggii ay ku dhacday iyadoo badqabta halka aan ku suganahay waa xarunta damdamiska ciidamada Soomaaliland taliyaha guud ee ciidanka damdamiska sareeyo guud Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili oo warbaahinta la hadliyay ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgalka ciidamada damdamisku ay ku soo badbaadiyeen gabadhaasi ku dhacday musqusha ama basuuliga siyaabaha ay soo badbaadiyeen waa kan taliyaha oo ka waramaya anagoo subaxnimadii tababar ku jirna ayaa nalagu yeedhay gurmad la leeyahay gabadh ayaa musqul la gooday ee ku dhacday tababarkii hore joojinay isla markiiba 3 daqiiqadood ayaan ku gaarnay sababta ahayd baabuurtii iyo buuqii baan weli soo kicin isla markii aanu gaarnay ayaan ugu tagnay gabadh xamaam ku dhex jirta oo da'deedu ilaa 35 jir bay ahayd xamaamku dhererkiisu wuxuu ahaa 7 mitir buu ahaa wasaqadii ama biyi ku jirana ilaa qoorta ilaa cunaha ayuu markaa u jiray waxa dhacday markaa dadweynaha ayaa markii hore CD ka soo saara markay ka soo saari kari waayeen bay anagii noo yeedheen dadweynaha taa aad iyo aad baan uga digaya uga waaninaya waxa laali wixii dhaca hal isku dayo in laga soo saaro laakiin waa in marka ugu horeysa ciidanka damdamiska loo yeedha si aanu badbaadada si fiican ugu qabano qofkiina aan cawarada u gaarin leeyahay qofka xamaam ku dhaca hawadu ka xidhan yahay waa gas taasina hadii in yar qofkaasi uu ku dhex jiro uu dhimanaya almuhiim markii aan meesha tagnay waxaan ugu tagnay reerkii aad u kacsan 6 caruur dhashay oo ooyaya odaygii qabay oo maxaa la yiraahdaa wadna xanuun qabay gaastri qabay isna meel ku suxsan dadweynihii wada khalkhalsan almuhiim in markii aan meesha gaarnay qalabkii lagu adeegsan lahaa maxaa la yiraahdaa nabadgelyada ayaanu markiiba aan degdeg waqaajisanay almuhiim gabadhii iyadoo nool oo aan wax ku dhicin oo aan suuxsaneen oo maankeedu fiicay baan ka soo saarnay xamaamkii anoo isticmaalna salaamo iyo xadhko iyo inamadii damdamiska oo dhiiran oo godkii ku dhex degay oo gabadhii ku soo xidhay marka sidii markaan ka soo saarnay waxaan ugu yara raagay oo hore u yara weynay ambulance-kii markii aanu in badan sugnay baan anagu baabuurteeda ku qaadno oo dhakhtarka ku geynay wax dhaawac ma gaadhin markii aanu sii sidnay ayaa madaxa ayaa laga haybay tiri in yaro barra ayaa timid almuhiim waxaan ku wareejinay ciidamadii caafimaadka Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen TV-ga Universal magaalada Hargeysa.